culimada waaweyn ee degmada garadag ayaa ka qayb galay munaasabad xadhiga looga jarayay misaajid cusub oo laga hirgeliyay degmada garadag. dhismaha misaajidkana waxaa hirgeliyay dad muxsiniin oo u dhashay degmada garadag. munaasabadii furitaankana waxaa kasoo qayb galay waayeelka iyo waxgaradka iyo qaar ka mid ah maamulka degmada. ugu horeyntiina waxaa munaasabadaasi ka hadlay sheekh saciid aadan gumuri iyo waliba sheekh cabdisalaan oo ku dheeraaday muhiimada misaajidkan u leeyahay dadka ku nool degmada garadag. dadka muslimiinta ee magaalada degan gaar ahaan xaafadda Allah subhanahu wa ta'ala kuwa u suurtageliyo inay misaajidka ku camilaan cibaado Allah ka cabsi qiraa'atul qur'aan iyo salaad iyo ikhlaas Allah subhanahu wa ta'ala ka dhigayo waxaan leenahay dadka misaajidka dhisay ee qarash ku bixiya iyagana jazaakumullahu khayr ayaan leenahay waruntii waa sadaqa jaariya intuu misaajidka uu taagan yahay Allah subhanahu wa ta'ala wixii Allah baxadeen waad ka heli doontaan haday tahay waalidiintii loo niyooday uu gaari doona uu socon doona kuwii qarashka bixiya Allah subhanahu wa ta'ala niyooday uu siin doona inna Allah subhanahu wa ta'ala uu leeyahay inna la nudii'u ajra man ahsana. عبد الفتاح عبد الله بيان ستار تي في دق مدى